Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Wardon Academy iyo koorsada la xiriirta luqadda Boortaqiiska. Waa cashirka afraad ee casharadii aan ku eegaynay ama ku fiirinay phonetica. Phonetica waan soo sheegnay. Phonetica macnaheedu waa qaabka loogu dhawaaqayo ereyada Boortaqiiska sida loogu dhawaaqayo phonetica. Ereyga noo saaran miiska hadda waa J, xarafka J waaye. dabcan xarafka J si la mid ah xarfiya aan soo sharaxnaba wuxuu leeyahay dhawaaqyo kala duwan, waxayna ku xiran tahay hadba shaqalka ka daba mara. Xarafka J sida loogu dhawaaqayo waxay ku xiran tahay xarafka ka daba mara. J ayaa la yiraahdaa xarafka J, balse marka qaar waxaad arkaysaa in ga loogu dhawaaqayo. Inkastoo J ay tahay alphabetka marka la aqrinayay A B C D E F G J oo dhawaqiiso, laakiin ogow markasta J-daas ahamayo waxay ku xiran tahay shaqalka raaca sida loogu dhawaaqayo. marka qaar ga ayuu noqonayaa ama go ama ge ama gi ama go gu saabo noqon karaa. marka qaar J oo noqon karaa. marka waxay ku xiran tahay hadba xarafka ka daba mara ay ku xiran tahay. xarafka J ayaa noo saaran miiska. xarafka J marka ay ka daba maro, marka uu ka daba maro ama raaco shaqalka A, marka uu raaco ama O ay raacdo waxa lagu dhawaaqaa ga ayaa lagu dhawaaqaa ga. tusaale ahaan gamela oo kale ama gatu oo kale ama gadu. ereydaas ku muuqdo J A waaye, sidaa darteedna ga lagu dhawaaqayaa. gamela oo kale tusaale ahaan qabaal waaye, meel wax lagu shubo. gatu waa taqaanaa bisad waaye. gadu waa lo'da. marka ga waaye dhammaantood. gavião oo kale, galinha iyo galo waa dooro. haddii kale garfu oo kale ama garfu ama galo waa soo aragna kuwaasna. garfu qaado waa fargeyto. garfu gola golu ama gola ama gota waa taqaan oo dhibac ah. goma marka gota oo dhibac ah. ga way dhammaantood. gaveta gamela galo. tusaale halkaana gaveta qaanad waaye. gaveta dabcan sida aad meeshaan u qoran yihiin waxaa la rabaa inaad ka doorato ereyga saxda ee liiskan. waa meesha tusaale intuu koreyso kale gamela gato iyo gado ayaa lagu yiri. meeshaan ereyga kale sawir ka muuqdana waa gato oo bisada waaye. hoosna gavião galinha iyo galo ayaa leeyahay. galo ayaa ka muuqda meesha. waxaa ku xigta garfu galo iyo gato. garfu ayaa ku jira sawirkeeda meesha. gola gota iyo gomana gota oo dhibac waaye. muhiimaddu waxay tahay inaad fahanto sida ay u dhawaaqayso. dhinaca kale markaan fiirino J-di marka el raaciyo J u dhawaaqaya. tusaale jelu oo kale jileti iyo jirafa. jelu waa baraf. jileti waa jiletiga wax lagu xirto garxiirka oo kale. iyo jirafana waa maxay? waa geri. hoos oo kale jirafa jileti jema. meeshan jirafa ayaa ka muuqata sawirkeeda. gayola gavião iyo gaveta waxaa ka muuqda. gavião waxaa ka muuqda meeshan. gayola ayaa ka muuqata. gota golu goyaba. gota golu goyaba. goyaba ka muuqata sawirkeeda. goteiro goleiro iyo goyaba. goyaba inaysan jeclahay. goyaba oo ah saytuun ah. marka macnaha aan sababtaan u keenay meesha sawiradan waxay tahay inaad fahanto J marka loogu dhawaaqayo ga iyo marka loogu dhawaaqayo J. ga marka loogu dhawaaqayo waa marka ay A ka daba marto ama se O ka daba marto. sidaas soo aragnay oo kale oo gamela oo kale aan u jeedno hadda, ama haddii kale gota oo kale iyo wixii la mid ah. markay E ka daba marto sida jelu oo kale J lagu dhawaaqaya. marka I ka daba marto sida jileti oo kale ama jirafa E ayaa lagu dhawaaqaya. jirafa jelu jileti jirafa. J waa dhammaantood. ama jirafa jileti jema ama gayola gavião gaveta waa ga sababtoo A ka daba martay. haddii la rabo shaqal kale aada kasii daba maro sida I oo kale gayola meesha lagu yiri. gavião ayaa la gavião gaveta gota
gola, goiaba, goteiro iyo goleiro oo gool dhaliya ah. Goiabana waa taqaan saytuunki ah. Goteiruna waa majarafta ama meesha biyaha sayrisoo kale. Marka inaad si fiican u fahanteen ayaan jeclahay. Marka xarafka ga j marka ga loogu dhawaaqayo iyo marka j loogu dhawaaqayo. Ga marka loogu dhawaaqayo iyo marka j loogu dhawaaqayo waxay ku xiran tahay shaqalka daba mara. A iyo o haday tahay waa ga. E iyo i haday tahana waa j. U haday tahana waa gu sidoo kale u haday tahay. Laakiin u haday i ka daba marto gi ay noqonay gi. U iyo i borsada arto waa gi. aad u fududena fahanteen jecla waa mahadsantihiin.